isxilqaan dadkaygu isxilqaan dal walba dadkiisa dhise isxilqaan dalkan yaale inagaale dalkan yaale inagaale dadkiisa dhise muwaadinu isxilqaan isxilqaan dadkaygu dal walbaba adduunyada dadkiisa dhisaayo inuu dumaan doonayne isxilqaan dadkaygu isxilqaan dadkaygu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مانتا شنية 8 أكتوبر وحنو جوجنا محفظكي قرنك سوماليا وأنو كوكا هذا كلتنكي سجالات برنامجكي مدحضة قرنك سوماليا أي نوجود واقعين إسحلقان كل سودالك هاجا وزارة التمرت هي خيرات كبيرة وحقي مركز هيجنا يوتهاي أين الديار وتهاي إن أي كوب حصو إن مارته نفس الديدا نورش هذا إيو هنتيبا إن أي كل استو قرنك دالك إن جوبه وعنك بنا نفع قبل شد وهاي مركز كاسي ومدة الصومالية وحبذا ترجري مستقبل كنا لدونا إن الدبلوهرة أو دبلوفر أو دبلو يجلو runtii barnaamijka kani wuxuu noqday barnaamij taabagalay ee la taaban karo waxyaabaha dawladda maanta jirtaayo ay maartay ay ku faanin karto oo ayna ummadii u soo bandhigi karto ay ka mid tahay runtii isxilqaan marka la eego isxilqaan maynan ka qayb qaadanin kaliya yaani caasimadda dalka Soomaaliya laakiin waxa ay ka socdaa oo marka ka tusaale oo u naqanay in isteediyada iyaguna ay sameeyaan waxa kale jira in gobolada dalka laga qabanayo waxa jira iyadana in aynan ahayn kaliya maanta dawladda يعني civil servant-iga ama shaqaalaha dawladda kaliya inay ka shaqeeyaan inay ahayn laakiin ay maanta isxilqaan ay ka qayb qaataan ciidamada qalabka sida ay kala duwan waxa ka qayb qaata ururada bulshada ayaa ka qayb qaata waxa ka qayb qaata jaamacadaha dalka waxa ka qayb qaata dhammaan يعني bulshada qaybeeda kala duwan ayaa barnaamijka isxilqaan ku baraarugay waxaana la ogaaday miro dharka ay leedahay runtii waxa weeyaan maanta dadku waxa ay u helayeen in ay wadankooda ay dhistaan dhibaatadii burburkii inay ka soo kabtaan maskax fiyow jir fiyow ee caafimaad leh maarkaasi tiigsanaya mustaqbalka wadanka kani in sidii uu bilicsanaa ee quruxda uu lahaa in ka badan in maanta yani la sameeyo waxyaabo fara badanna in markaasi la alifo oo lagu soo biiriyo dalka sida markaasi maanta ay u noqon lahayd caasimadda dalka Soomaaliya caasimadaha adduunka mid yani la jaanqaada oo caasimadaha adduunka ay markaasi la tartanto ayna gaarto heerka ana lagu qiimeyn karo hadday naqan lahayd xagga dhismaha hadday naqan lahayd xagga nadaafadda hadday naqan lahayd xagga dhaqanka iyo culture-ka iyo suugaanta hadday naqan lahayd xagga markaasi science-ka iyo technology-da ayaa insha Allah aan higsanayna taasina waxa ay tahay mustaqbalkeena waxyaabaha aanu higsanayno كوزارة دهان وزارة تمرتي خيرات كبيرة وحن مركز تديار ونهاي إن أنا وكسر غير قادرنا وأن كالي مقلة أنو كقلنا برنامج كسحلقان وأنا ما سمعت إسحلقان دبكيغو إسحلقان